fariintan waxay ku socotaa dhammaan dhalinyarada guurdoonka ah wiilal iyo gabdho iyo hadduu doonan kuwa waaweynba waxaan ku hayaa sirta guurka oo ah sidee u dooranaysaa qofkaaga qof kasto ilaahay abuuray qof buu leeyahay adigu qof baad leedahay anna qof baan leeyahay muhiimaddu marka waxay tahay sidee u helaysaa qofkaaga si aad u hesho guur farxad leh أنا كوهاي سرتي هرت كسر دو درد ميديا فلو دي لوفتن يقو عاوي سيدو كله أصحاب تكوحيران درد ميديا تيك توك إي فيسبوك قبل حد يكو عسو من ناش سيدو كله إن أطبقتان يوتيوب كو فلان سبسكرايب صارتان وإسلام مقعة درد ميديا واتهاي قف مركا دورنا يسو محاد كو دورتها والله ويل كاسر ربا إنا نقور سده هدو مرئي قور سن لها وانجعلها أس وريا حماد شيقين نيو تاير باه ربا إنا نقور سدو وانا قروح بدن بيان باس ugu sheekays waxa maad sheegin qofku markuu qof dooranayo waxa jira laba doorasho guud iyo mid khaas ah oo adiga khaas ku ah doorashada guud inta badan dadku way yaqaanaan laakiin midda laga tago waa midda adiga khaaska ku ah waana midda uu fiidigan ku saabsan yahay hadii aad dhamaysato doorashada guud xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam tuha gabar waxa lagu doortaa afar shay diinteeda haday tahay quruxdeeda maalkeeda reer wanaagsan ka dhalatay wiilkiina markii la yiri haduu gabadha ka soo doonto hadad akhlaaqdiisa aad ka raali noqoto gabadhiisa waa doorasho guud laakiin mid waxa jirta qof kasta u khaas ah waana midda uu fiidiyoga ku saabsan yahay saad u hesho sirta doorashada waxaad isweydiinaysaa laba su'aalood su'aasha koowaad waa maxay horta guur maxaa loo guursadaa ujeedka guurku horta muxuu yahay okay inaan raaxaysto xamaad sheegin wallahi ma waxaan rabaa inuu caruur cad iga soo daadiyo been baas ugu sheekayso ujeedooyinku way fara badan karaan laakiin ujeedada ugu weyn ee guurka laga leeyahay waxba isku daalinin ilaahay baa ka jawaabay ina mar aan ku geeyo suuratu rum aayadeeda 11aad wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswajan li taskunu إليها ويبدأن تهايو إله وحده سبحانه وتعالى آياتها إلهي وحكم ذا إنه نففكنا كأبوري أسواجا حاسس كان مركا وتشيت حاسس إن حاسة ما يسطو محاي تهاي لي تسكنوا إليها سيادو حسيشان سيادو حسيشو آياتها ده سيوة ضم حاليا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة قرمات مودة تعايل إيا الرحمة قرمات لهليا لي تسكنوا إليها عرور قرمات هلسا لي تسكنوا إليها هي قرمات راحة دريمسا لي تسكنوا إليها قفكنا قرمو مستقبل كورسامين لي تسكن نمبر 1 waxa kala dhan dib bay ka iimaanayaan muhiimadda guurka loo sameeyay waa inaad ku xasisho hal su'aal markay isweydii meel fariiso 5 daqiiqo fadhi 5 daqiiqo fadhi saacad fadhi 5 saac fadhi 4 saacadood doonta ka fakar hal su'aal isweydii kadibna jawaabteeda raadi su'aashu maxay tahay waxaad isweydiinaysaa qofka aan guursanayo muxuu yahay shayga markaan ka helo aan farxad dareemayo oo qalbigaygu xasilayo inner peace waxa la dhaho qalbigu uu happiness aan farxad ka dareem aan degayo xasilayo maxay yahay mid buu noqon karaa laba noqon karaa saddex buu noqon karaa raadi markaad hesho shaygaas bas qofka aad dooranayso shayga bas ka raadi qof kastana wuu ku kala duwan yahay aniga hal shay baa i farxad geliyo oo aan ku xasilaa adiga shay kale ku farxad geliyo aad ku xasilin gabadhan shaygana ku farxad gelinay ku xasilaysa mid baa wuxuu jecel yahay qof qurux badan ba oo haduuba gabadhan quruxdeeda ama ninkan quruxdeeda haday aragto ama uu arko uu iska xasilin soo qof qurux badan raadi marka qof baa wuxuu jecel yahay qof hadal macaan oo hadalka unba hadal nooca dhaho saa ula hadla khalaas ka ku adigu wuxuu doonaba ha noqdo isweydii intaad meel fariisato maxay tahay shayga qofkan markaan guursado hadii aan ka helo aan ku xasilayo waa maxay shayga marka qof kastana qofka kale uu ka duwan yahay adiga uma taa ka jawaabi kara kaliya war halkaas kama dambayso baan ku irinayo pointiga aynu miskarayno aynu ilowno waa pointiga waa qodobkaas weeyaan tusaale baan ku siinay qofku waxa tiri qof diin leh baan rabaa akhlaaq oo doorashadii guud waxaaba ilaahay ku siiyay nin sheekha oo barakaysan oo cilmigu biyo dhigay oo haybada khayrka cibaadada dabeecadda
waxaan ku yiri wadooyinka markuu marayo fadhiga looga kaco laga hibaysto waad guursatay laakiin wax yar oo aad jeceshahay oo qalbigaaga uu ku xasili lahaa baad ka weyday weligaa ma xasilaysid orda sheekhu meel ku geeyay marka ama nin baa tahay waxaad u waalatay gabar diin leh qurux leh tabiicad miyaa la isku helaa saddexda maya way adag tahay saddexdiiba waa heshay gabar qurux badan akhlaaqda iyo diinta waalidkeed faraha kaga soo gubteen kadib intay qaahiro tagtay ama maxaan ku leeyahay Suudaan bachelorka ku soo diyaar Islamic Studies jaamacatul Madiina intay tagtay haddana masterka ku soo diyaarisay fiqi am xadiis maxaa la yiraahdaa PhD soo diyaarisay waad heshay waa gabar dhinac walba ka dhisan caadi ma aha laakiin hal shay oo aad jeceshahay oo iska fudud baad ka weyday weligaa ma xasilaysid kaala sheekhadu meelaha ku geysade bointiga aynu miskareyno waa ka marka qof kastana qofka kale uu kaga duwan yahay isweydii adiga muxuu yahay shayga marka aad qofkan ka hesho aad xasilayso muxuu yahay kadibna shayga hal mid noqon kara laba noqon kara saddex dhowr bay noqon karaan kadib shayga ka dhexraadi adigu qofka shayga ku dooro waa doorashada khaaska ah walaal oo qof kasta gaarka u ah warada ma fahanti way dhan tahay deen litaskunu ilayha